ilaahay baa mahad leh awalan marka labaad waan idin mahad celinayaa waxaan joognaa xarunta naadiga akhriska qoraalka ee dhaqanka anfac waxaanu soo dhaweynaynaa inagoo isku duuban bahweynta naadigu waxay soo dhaweynaysaa website-ka cusub Xogsame News website-kaas waanu ka fili doono inuu wax badan oo nagu ahaa culays ama meelo kale ka doonan jiray inuu noo soo fududeeyo oo noo soo dhaweeyo aanu markaba ka heli karo aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba Cabdiraxmaan oo ka hawlgelaya website-ka waxaanu ku ognahay inuu yahay nin active oo firfircoon waanu ognahay inuu aad iyo aad uu ka horeyn doono website-yada kale ee ka jira dalka iyo guud ahaanba caalamka inuu ahaan doono website caalami oo meel walba adduunka ka mid nagaga xiran yahay aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba xaqiiqooyin badan baanu ka heli doonaa aad baad mahadsantihiin wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum ya ilaaha bismillaahi raxmaani raxiim galabta waxaan ku sugannahay xarunta naadiga akhriska qoraalka dhaqanka iyo wacyigelinta gobolka Sanaag naadiga anfac dhammaan xubnaha naadiga oo gudoomiyuhu horkacayo waxaan halkan isugu niminayno soo dhaweyno website-ka cusub ee gobolka ku cusub ee Xogsame waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweyno ugu horeyn xarunta naadiga oo galabta nagula sugan yahay mar labaadkana waxaan jecelahay inaanu si hagar la'aan ula shaqeyno website-kan laba siyoodba inanka uga mas'uulka Ceerigaabo Cabdiraxmaan Bridge oo aan hubno inuu in badan website-kan wax ku soo kordhin karo gobolkiisana wax ugu qaban karo naftiisana wax ugu qaban karo anoo ku daliilshanaya firfircoonidiisa kartidiisa iyo dulqaadkiisa waxaan hubaa inuu noqon doono website ka shacbaxa caasimadda gobolkiisa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan soo dhaweynayaa website-kan cusub uu noo soo ikhtiraacay Cabsa Koronto isla markaa uu anagana na soo gaarsiiyay Cabdiraxmaan saaxiibkay waxaan leeyahay website-oo gacmo furan ku soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah xubin ka mid ah naadiga akhriska qoraalka dhaqanka ee anfac joogana xaruntiisa guud ee magaalada Ceerigaabo waxaan soo dhaweynayaa website-ka Xogsame website-kan oo rajayn doona inuu noqdo website raali geliya waxyaabo badan oo naga qabtira waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan laga furan iyo qalbi furan waxaan leeyahay soo dhawow waxaan aad ugu mahadnaqayaa ninka maskaxdiisa ka soo dhalatay Cabsa Koronto iyo dhammaan waxaan salaamayaa website-ka cusub shaqaalihiisa iyo inaan halka uga hawlgelaya Cabdiraxmaan Bridge iyo website-ka Xogsame News kaasoo aan filayno inuu warar badan ku soo kordhin doono kuwaas oo ku saleysan xaqiiqada runtii waxaan aad ugu mahad celinayaa Cabsa Koronto oo ah wariyaha wada garanayno anoo ku hadlaya magaca wakiil wareedka gobolka Sanaag ee SAB TV waxaan halka si toos ah uga soo dhaweynaynaa Xogsame News oo noqon doona website-yada ka hawlgala guud ahaan Somaliland ama caalamka si toos ah hadaan nahay saxaafadda gobolka Sanaag waxaan u soo dhaweynaynaa si gaar ah website-kan oo la shaqeynaa wixii barnaamijyada sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa inaan aad ka firfircoon oo gobolka uga hawlgalaya website-ka Xogsame News Cabdiraxmaan British shaqaale weynaha Xogsame News ka hawlgalayana salaam waxaan doonaynaa inaan idinku sii dhiirigelino inaad soo deysaan ama soo gelisaan website-kiina barnaamijyo ka hadlaya xaqiiqada iyo wacyiga taagan waqtigan assalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim ruux mashquul ariya ilaahay hawada yaa isleeyay aqal nooga bax wadaan galeynaa ariya yes wallahi niyo xaqleed ilaahay niyo wasarka cusub ee Xogsame la dhaho xala dhaha Xogsame la dhaha niyo oo markaa muxuu xogtu wada maxay waa Xogsame weeye waa wasar way ka khaldantahay hadaba oo maxay aqaana waa xoog sida oo waa wixii shaqaalihi waxa waa ka xumaanay waxaan ku nacay mid walba wax khaldaya ilaahay wax weey waa wasar cusub Xogsame la dhaha news muxuu ku soo daabacay wuxuu ku soo daabacay balle niyo xabaari wax ma ka qoray sibaani ugu qoran wuxuu yiri kuwii hore wuxuu yiri iska tag bade war website-yadii hore ha iska tag waa ilaahay baad ka baqay inna lillahi ni waa dambaysaa ilaahay khayr ka dhigay website-ka yaale waxa le dhammaan warbaahinada ugu horeeya Cabsa Koronto
aniga bisha tahriib inta website-dadii waxa ku soo dhabeelay on maanta waxa loo baahay dhalinyaro wadanka wax u qabata dhalinyaro naga tago war soo taa jarban la galay waa ninkii weynaa wax website-kan garaasa wuxuu dheeryahay dee kuwa kale kuwa kale wixii iska watago way barnaamijyada hadda waxaad uga baahatid wax soo daawacaya wax kasta maanta dawladda Afrika waa ku cusub uu soo daawacaya war kuwii hore been baa lagu dhintay kuwii hore inaad kuwa hore waxa san ku nacay kana wax ku leeyahay kuwii hore uu dhaawac waxaanu leeyahay hadaba cabdi koronto iyo dhamaan warbaahinada uga shaqeeya gobolada maxaan leenahay waxaan anagu leenahay soo dhawaada gacmo furan hadaan nahay dhalinyaradii gobolka Sanaag wadin soo dhaweynaa qolkiiba boqol الناس وارياه maxay noo balana xogsame news wabla xogsama ka soo dhacay internet xawaare leh xogsama la soo dhacay xog wanaag inuu yahay hubaal waa xaqiiqe kala xulo website-dada adiga xoriyad leh iga dhan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore waxaan soo dhaweynayaa website-kan cusub ee ku soo biiray saaxadda website-dada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo adduunkaba ee la yiraahdo xogsame news waxaan ogahay aan hubaa sida la sheegayo inuu yahay ninkan yahay mas'uulka ka iyo manager-ku uu yahay Cabdirasaaq Koronto oo ah nin hawlkarnimo iyo firfircooni looga bartay waxaan hubaa isna sidoo kale website-kan inuu noqon doono mid isna firfircoon oo meel la maxaa ku dhahay firfircoon isla markaasina meel la hiigsan karo gaarsiiyo saxaafadda iyo guud ahaanba website-dada caalamka waan soo dhaweynayaa ka Cabdirashiid ahaan website-ka xogsame news waxaan ogahay sidoo kale inuu yahay wakiilka website-ku magaalada Ceerigaabo haliyey ama haldoor ama sidoo kale ninka ugu firfircoon saxaafadda gobolka ee da'da yar weliba Cabdiraxmaan British waxaan leeyahay waan soo dhaweynayaa dhammaantiin insha Allah waxaan rajayn doonaa website-kan inuu noqdo mid bulshada iyo sidoo kale madaxda dawladda dhex u ah oo aan noqon mid madaxda kaliya ama qasriga madaxda dalku maxaan ku dhahday xogaa ugu soo dhiibo sida uu yeelo inaan yeelin insha Allah rajaynaya waan soo dhaweynaynaa waxaan kaloo ballan qaadayaa aniga iyo inta la midka ah soo kaxin karaaba xogtayada iyo waxaan u baahnaa inaan soo dhigan doono xogsame news insha Allah welcome baa dadna dhalinyarada gobolka Sanaag khaasatan magaalada Ceerigaabo waxaan halka ku soo dhaweynaynaa website-ka cusub ee xogsame oo Cabdiraxmaan halka uu joogo waxaan leenahay ku soo dhawow waxaan rajaynaynaa inuu barnaamijyo tayo leh oo fiican oo dhalinyarada iyo dhiirigelinteedaba ka shaqayn doono soo deyn doono annaguna in badan baan la socon doonaa waana ku xidhnaan doonaa assalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Dahab Xasan Maxamed waxaan ka tirsanahay naadiga akhriska iyo qoraalka iyo dhaqanka gobolka Sanaag waxaan soo dhaweynayaa website-ka cusub ee xogsame news ee uu madaxa u yahay Cabdirasaaq Koronto waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawow insha Allah waan ku xidhnaan doonaa waxaan noqon doonaa kuwa maalin kasta soo booqda ee website-ka cusub إن شاء الله وحنا لنا هدرليرة أذيك يو أنت كلا فرعون قبل هذا سومال لان كنا قنبا ونسود وين ناض ذوق الرئيسو ما شاء الله وحنا كلنا هلية بعد هاي